muuqaal cusub oo soo baxay 24 saac ee u dambeeyay oo ay duubtay kaamirooyinka ku xidhan koofiyadda ciidamada Australia ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa muujiyay ciidamada Australia oo galaya dambiyo dagaal waxaana arrintan helay oo soo bandhigay warbaahinta la yiraahdo Four Corners oo ah hay'ad warfaafineed oo baarista iyo dabagalka saxaafadeed samaysa muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya ciidamada Australia sida gaarka u tababaran ee cirka ee la yiraahdo Special Air Service askari kamid ah oo 3 xabadood madaxa iyo xabadka kaga dhufanaya muwaadin reer Afghanistan ah oo aan hubaysnayn oo beertiisa iska dhex joogay haddana markaas dhulka fadhiyay ciidamada xoogga Australia ayaa kiiskan horay u baaray waxayna sheegeen in askarigu aanu wax dambi lahayn oo uu isdifaacayay laakiinse muuqaalkan cusub ee soo baxay ayaa ceeb weyn ku noqday dawladda Australia muuqaalkan ayaa noqday caddayn cad oo muujisay dambiga uu galay askarigan ee ah inuu dilay qof shacab oo aan waxba galabsan hay'adaha xuquuqul aadanaha u dooda ayaa ugu baaqaya dawladda Australia inay arrintan tallaabo cad ka qaado dilkan ayaa ka mid ah kiisas kale oo ay bannaanka soo dhigtay warbaahinta Four Corners oo noqonaya dambiyo dagaal oo toos ah who's trying to fight off Quake. Leave! Quake! In the man's hand appears to be a set of red prayer beads. No weapon or radio can be seen. The Afghan is compliant and quiet on the ground. Down. As the dog is called off, Soldier C trains his weapon on the Afghan from very close range. He then turns to the dog handler. I don't know, mate. Drop this gun! Quake, no! Quake!